Hordhac. Barashada naxwuhu waxay kor u qaadaa awooddeena adeegsiga afkeena hooyo. Hadalkeena ayaa qumanaada, qoraalkeena iyo oraahdeena ayaa ka tifaftirnaada qaladaad naxweed oo ugu yaraan waxaynu sixi karnaa higaada ereyada aynu qorayno. Sidoo kale, barashada naxwuhu waxay inoo horseedaa in aynu si fiican u akhrisanno, u fahanno, una baranno aqoonno badan oo kale sida sooyaal, saynis, dhaqaale, aqoon bulsho iyo wax la mid ah. Gaar ahaan, aqoonaha afka ayaynu dhuuxi karnaa inagoo markaas fiiro gaar ah siinayna oo u riyaaqayna afkeena hodanka ah iyo suugaantiisa murtida badan. Guud ahaan, ereyada afka oo ku dhisan codad isku xiran oo macno sameynaya waxaa loo kala kooxeeyaa hadba sida loogu kala adeegsado weeraha. Kooxayntaas naxweed oo lagu magacaabo qaybaha hadalka waxaa ugu dooroon: 1. Magacyada, 2. Caymayaasha, 3. Magacyaalada, 4. Falalka iyo 5. Qurbiyada. Shantaas qaybood oo udub dhexaad u ah baabka ereyeynta ee naxwaha ayaan si guud mar ah ugu soo bandhigaynaa bogagga soo socda. Haddaan halkaa ku yara hakanno, shanta qaybood aynu ka soo hadalnay runtii waxaa la isu raacin karaa 3 qaybood. Waa magacyo iyo wixii la halmaala sida magacyaallo, caymayaal iyo wax la halmaala, falal iyo qurbiyo. Qofkii soo bartay ajrumiyada ama naxwaha af carabigana wuu fahmayaa inay ka kooban yihiin 3 qaybood ee muhiimka loo kala qaybinayo ee kala ahaa ismun wa ficlun wa xarfun. Hordhacaas kooban markaynu ka nimaano buugga ayaynu imika toos u gelaynaa, waynu kala jarjaranaynaa.